een maanta axada bisha 22 tahay February 2020 22nd of February 2020 in Boorama Awdal. dhalinyarta Boorama iyo dadka deegaanka bal waxaan la qaybsanayaa fikir iyo aragti. waxay ka fursan weyday waxaan dhageystay Muuse Biixi khudbadiisii. khudbadda markaan dhageystay wax beena kuma jirin. wuxuu sheegay si wanaagsan buu sheegay dhibta ka jirtay deegaankan. berigoor la oran jiray waqooyi galbeed imika maamul samaystay Somaliland dawladna raadinaya. wuxuu ka hadlay taariikhda berigii hore. wuxuu ka hadlay sida la isku darsaday laba deegaan oo isku darsaday deegaanka Somaliland iyo deegaanka koonfurta. laba dawladood markaa noqday 6 degmo iyo 6 degmo aha. sidoo uu sheegay inay 6dii degmo ee koonfurta 6 gobol noqotay 6dii degmo ee Somalilandna 2 gobol noqotay. wuxuu sheegay dawladda inay madaxweynihii ciidamadii caasimadii militarigii wasiiradii badnaa in 3 wasiir laga siiyay dadka Somaliland ka soo jeeda. dadka Somaliland ka soo jeeda qolooyinka soo jeedo. wuxuu sheegay fawaaxishnimadii ciidankii diriiska sitay ka geystay deegaanka Hargeysa iyo Burco. inta uu sheego dhan waa xaqiiq waana run. waxaan quraatu kaga aragti duwan yahay waa marka lagu eegayo muraayada uu beesha uu ka soo jeedo Muuse Biixi. markuu muraayada xidhan yahay absolutely waa gar iyo meesha dhigtay ana laga helay waana runtiisa. laakiin muraayadaas oo xidhan anna waxaan u xidhanayaa muraayad gadabuursi baan u xidhanayaa. iyo dadka damiir kale deegaankan ka soo jeeda waxna diidi kara waxna dooni kara madaxa banaan biiri qaata ahayn muraayaddeedaan u xidhanayaa. muraayadda markaan u xidhnayo halkan Boorama markii lagu heshiiyey taariikhdu ahayd gobolka ka soo jeeday waqooyi galbeed wuxuu ahaa 3 degmo Hargeysa Gabiley iyo Berbera. Boorama wuxuu ahaa 4 degmo Zeylac Lughaya Baki iyo Boorama boon la oran jiray Boorama 4 degmo. saaxiibo maanta imisa degma leedahay gobol lama ka dhigatay waa koow. dhinaca kale markii halkan lagu heshiiyay odayaashu ku heshiiyeen inako askar baahayden dadka deegaankanana waxay ahaayeen ciidanka Soomaaliya dawladda iyo taageereen faqash bay ahaayeen. waxaan maqli jiray dadka xuquuq SNMta aan u aqoonsanahay dad xuquuqdooda u dagaaltamayay dadkooda u dagaaltamayay waxa la oran jiray iyagana
qurma sunbaa la oran jiray halkana faqa shumbahay waa kow halka markii lagu heshiiyey beel ahaaneed waa xaqiiq beesha uu ka soo jeedo Muuse Biixi waa aqlabiyadda Somaliland beelooyin kala jira oo beesha halkan ka soo jeedo ay tahay aqlabiyadda labaad ee Somaliland waa Gadabursiga hartida beesha Ciise sidaas loo heshiiyey imisa dawladda aatri dawladdii Soomaaliya markay la baxday anaga 3 wasiir bayna siisay marka leedahay waa Soomaaliland leedahay muraahada kala gasho oo 3 wasiir oo kala fadhiya ku sacabadeen ee Gadabursi ka soo jeeday imisa adigu wasiir leedahay waxa kale ku darsata madaxweynuhu soo adiga ma odaga meesha fadhiye odayaasha dhax fadhiye Saleeman la soo adigun ma askarta ciidanka soo adigun ma wasiirka arrimaha gudaha iyo maaliyadda soo adigun ma dhaqaalaha soo adiga ma meeka dibadda ma haysaga laakiin dhaqaalaha soo adigu ma maxaad reebtay baarlamaanka ma xaqba ina halkan codka uu ku soo baxay baarlamaanku ka bato codad kale baarlamaanka ka soo baxay oo nin dhowr boqol oo cod haysta inuu dhowr kun oo cod la garab fadhiisto ma xaqba waa maya waxa kale oo raacinaya xisbiyada iyo la furayaa baladi aqliga saliimka wuxuu dhigayaa degmadan gobolkan maamulkan awdal magaala madaxdiina buura ma tahay waa inay xisbi yeelato laga aqbali maayo xisbiyo ay damiirka dadkan ay siin laadahay inay matalaan oo qolad ku sumaysan oo iyagu ay leeyihiin iyaga uga jeedaa nacam waa deegaamada shishe kulmiye ucid wadani intuba deegaankan ayna ka soo jeedin lana aqbali maayo shidaarad fool xun oo na shaqaynayn ina la yiraahdo xisbiga shuruudaha waxa lagu xidhayaa inay gobolka amba degmada badhan ku yeeshaan xubno sanaa ku yeeshaan xubno ergaabe iyo meel uuna ka soo dhaweyn dadkan deegaanka inay shuruudo nacam ka dhigaan sidii markii hore taa waxaa dhaantay inay yiraahdaan inuu shuruudaha lagu xirayo xisbiyada waa inay ahaadaan qabiilka uu Muuse Biixi ka soo jeedo deegaanka ka soo jeedo ee kolna lagu tilmaamo beesha dhexe amba isaaq sida shuruud in looga dhigo iyo ku haboonta marka lagu leeyahay burciyo hawd waa inaan taasoo kuna xubno ku yeelatiin ya shuruud ha uga dhigaan inay baki ku yeeshaan 30 kun oo xubnood
zeylac ku yeeshaan 40,000 oo xubnood buurma ku yeeshaan 50,000 oo xubnood soo iyaguba kuma dhacayaan ها adeer had dimuqraadiyadda uu kow ka ahaa daahir riyaale kaahin wanaagna falay xumaanna falay dimuqraadiyadda isagu uu dhaliyay waxa weeyaan nin kastaba codkiisa fartiisa ha ku ciilbaxo codkiisa ha ku beego oo ha ku qiyaaso afkaartiisa iyo damaciisa marka xisbiga awdal hadduu 100,000 150,000 200,000 oo kun oo cod halkan ku leeyahay waa xisbi dawlad ridi kara waana xisbi kale heshiin kara aqlabiyad baarlamaanna yeelan kara waa siday xaqiiqdu tahay codku hadda dawladda la sii wadayo maamulka oo dimuqraadiyadda lagu sii wadayo qof kastaba codkiisa hal cod hal qof waa sida xaqiiqdu dhageyso dhulkana lagu maamulo cod iyo maamul wanaag waxaan xasuustaa markuu yiri Muuse Biixi dawladda Soomaaliya 2 mashruuc bal wax ka badan noo sheega ay wadanka u qabatay wadada maraysa kala beer ku joogsanaysa iyo sibirka inkastoo macal dikada berberna ballaarisay ay dhistay intaba laakiin halkan may soo gaarin iyaduna dadkan deegaanka waxba ku hayn dawladdaasi dawladda la oran jiray faqashta haddana hoggaan wanaag iyo maamul wanaag way iskala socday Muuse Biixi aqliga saliimka aqliga madaxa bannaan aqliga isku kalsoon wuxuu weydiinayaan deeqihii lagu deeqay Somaliland SDF Somali Development Fund halkeed marisay miyayna wada qaadan halkan maxaa ka soo gaaray waxba deeqaha adduunaha bixiyo World Bank Danish Fund UK8 wixii deeqa ee loo soo qaadanayo maamul ahaan iyo maamul dawlad raadinaya madax bannaan imsaxan ku baxday waa xisaabteeda marka Soomaaliya iyo Somaliland markay heshiinayso ma aha dawladda Soomaaliya ya beelaha Somaliland la heshiinaya amba dadka degan Somaliland Muuse Biixi waa inuu dhigo dawladda Soomaaliya ya uu beesha uu ka soo jeedo ya garamaysa garabna uga helay xaq ku jooga isaga xaq ku jooga Muuse Biixi wuxuu sheegay wax beena kuma jirto inuu saxsan yahay wada hadallada ka dhacaya dawladda Soomaaliya iyo beesha Muuse Biixi Siilaanyo waa laga gardarnaa gartoodii hal la siiyo waana sax laakiin
Soomaaliya iyo awdal heshiis iyo wada hadal uma dhexeeyo marka hore naxbay umay qaban haddana dadka deegaanka ka soo jeedo de maamulka hagaajiyo mooyaane waxaan ka sugayno habdhaqankooga naqaanaa aan barnay dadnimadoodan barnay wax laga sugayo oo la rajaynayo ma jirto